Diego Armando Maradona mucjizadii hore ee qaranka dalka Argentina ayaa mar kale ku digtay ciyaaryahan Lionel Andres Messi. Diego Armando Maradona astaan kubadda cagta oo dalka Argentina ayaa waxa uu fariin kulal oo cusub uu la wadaagay warbaahinta taas oo ku socota Lionel Messi halyeegii ku hogaamiyay xulkiisa qaranka dalka Venezuela ku guuleystay koobka adduunka 1986 ayaa mar kale sheegay in Messi uusan noqon doonin hogaamiye fiican. waxaan u jeclahay Lionel Messi si kal iyo laaba waa calaamad ama astaan wuxuu leeyahay taariikh weyn oo fog laakiin Lionel Messi uma arko in uu yahay hogaamiye dhab ah. Messi marnaba ma noqon karo hogaamiye. markii ugu horeysay uu halyeega reer Argentina Diego Armando Maradona uu weerar ku qaado kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi wuxuuna soo joogtay in uu sidaas sameeyo sanooyinkii la soo dhaafay. waxaa xusid mudan in Messi loo caleemo saaray kabtanka kooxda Barcelona tan iyo bilowgii xil ciyaareedkan kadib markii uu xilkaas baneeyay laacibkii hore ee kooxdaasi Andres Iniesta oo dhawaan isaga tagay naadiga Catalonia. si walba ha ahaatee waxaa jirta in haatan mar kale uu weerar ku qaaday laacibka hore ee kooxda qaranka dalka Argentina Diego Maradona mar Lionel Messi uu ku tilmaamay inuusan noqon karin halyey buuxin kara boosaska xulka qaranka dalkaasi Argentina ama baahida xulka qaranka dalka Argentina. waxaa hagaag daawadayaashana qodobka ugu